Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Oh, weird. Eyes were black. So it's doing it again. That switch down there is on. You can see it past my shaking. This one is on, okay? It's mom. muuqaalkan waxaa la soo dhigay barta Reddit waxaana soo dhigay nin waxa uuna yahay dhacdadiisani waxa uu la kulmay leedkii oo keligii isshidaya isna baqtiinaya waxa uuna doonay markiiba inuu ka qaado muuqaal laakiin inta kadib wixii dhacay ayaa aad u la yaabnaa. Okay, so it's doing it again. That switch down there is on. You can see it past my shaking. This one is on, okay? It's mom. See what I mean? It's you can hear it. arrinta cabsida aadka u daran ku sii beertay ayaa waxa ay tahay fiishta leedka laga shido lagana baqtiyo ayaa kaligeed isdhaqaajinaysay waxayna taasi noqotay tii aadka ugu sii reebtay cabsida iyadoon cidna taabanayn. It's you can hear it. Mom, nope. muuqaalkan iyo dhacdadan waxaa laga bixiyay kommentiyo badan iyo tafsiiraad badan aad bayna isu khilaafeen qaar ka mid ah waxa ay yidhaahdeen waa muuqaal la sameeyey oo been ah oo ninkani ka soo shaqeeyay dadka laakiin badankoodu waxa ay yidhaahdeen waxaan waxa sameynayaa waa jin sababtoo ah waxaan ku cadeynaynaa falcelinta uu ninku sameeyey ayaa ah mid waaqici ah oo la rumaysan karo. It's you can hear it. Mom, nope. This has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. kuwani waa group ka kooban rag iyo dumar kooxdani waxa ay qabtaan ayaa waxa ay tahay inay sameeyaan waxyaabo khawaariq ah oo caqliga ka baxsan iyo inay la xidhiidhaan jinka iyo ruuxaanta waxayna ku kulmaan si qarsoodi ah guryaha lagu guuray. muuqaalkan markii laga soo duubayay waxa ay isku yimaadeen guri bari hore laga guuray oo laga helo dalka Mareykanka. gurigan berigii hore waxa isticmaali jiray nin ku jirdili jiray oo ku cadaabi jiray guriga dhexdiisa dumar badan mararka qaarna ku dhex dili jiray oo ku hoos aasi jiray guriga hoostiisa. dadkan sida qarsoodiga ah iskugu yeedhi jiray ruuxaanta iyo jinka waxa habeenada kamid ah ogaatay gabadh arrinta la yaab kale naxdinta leh waxa ay tahay inay gabadhii go'aansatay inay daba gasho kadibna ay ka soo qaato muuqaal laakiin markay muuqaalka soo gudbisay ayaa waxyaabo aad u la yaab badan dhaceen. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Oh, weird. Eyes were black. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Face has completely changed. kooxdan gabadhan ka mid ah ayaa markiiba waxa isbedelay qaabkeedii wajigeedii markiiba waxa bilaabmay in afkeedu aad u weynaado si shaydaani ahna ay u qosasho oo ay u dhoola cadayso markiiban ay banayso makaanka ama meesha oo ay uga baxdo dariiqad la yaab leh. gabadhu waxa ku dhacay dhabarkeeda dhaawacyo taas oo aanay markii hore ogeyn ama dadka qaar yiraahdeen waa ay adkeysanaysay. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. kadib markii ay gabadhu soo gudbisay muuqaalka waqti kadib waxaa dhacday inay gabadhu ay la kulanto riyooyin aad u xunxun marka ay hurdo. riyooyinka ay ku riyoon jirtay waxaa ka mid ahaa gabdho la jirdilayo oo la cadaabayo marmarka qaarna waxay la kulmi jirtay xanuun iyadoo oo la sheego inay caafimaadkeedu ahaa taam. maxaa aad ku tilmaami kartaan dhacdadani?